بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ حسين برانا هو رسول ورمضان مغالد وين هو كرسي سوق شيخ ما شاء الله فريستي ديار ما شيخ ما شاء الله. waxaan rabaa horta inaan ummadda madaxda meeshan fadhido gabanageeni hore former MP Mheshimiwa Shiil, our sitting members of parliament, MCA-ga, culumadii magaalada oo ku dimeeshan iyo odayaasha dhaqanka iyo hooyooyinka gabdhaha kor fadhiyaan. waxaan u maahnay inaan maanta aan qayb ka noqono furitaankii masjidu New Khalifa. aan u duceyno wiilkeena Cabdiqaadir oo u waqaf oo u sameeyay hooyadii baahila. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdaws geliyo hooyada, qabriga u waasiciyo, su'aasha qabrigana u fududeeyo. masjidkaniitu inta ku tukata iyo inta kutub ku akhriso ajirkeeda ayadaa iska leh. مسجد وحاوي وقرية أو وفي عن أدونك وعلى دسو النبي صلى الله عليه وسلم مركوا بعد المدينة قري مود سنين رمضان كله ما شاف ذلك قري مود سنين وعكال موسمين وحودث مسجد ومسجد القبة ما أنت مدينة كيالو ودتكو إذا جاي صاع عبادستان مسجد القبة على صومرة. مسجدك فإذا بدن أيوليه فضل بدن بوليه حاجة دينته هرتا وقرية عبادة ده وقرية شنت الصلاة لقيت كده مثل بعد ومال تعليم ومال قرآنك يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دتك لقبر سوا حرت تعليم واحد مسجدك هذا وحاويه ماشى مسلمين تا ماذا يسوي مسلمين ويسكو يبانايين كوا هاتا اسجعلين كوا هاتا اسكو عدهين ماشي ايكو كل مايين كوريهن موهو وتلada waa kala xulan kartaa laakiin masjidka waa calaamada midayso ummadda waay soo waxa weey waa meel waxa weeyo guriga ugu muhiimsan waa adduunka soo faa'iidooyinka uu leeyahay waa kaas. waxaan rabaa waliba heer ay u barina khaas odayaashii Sheikh Maxamed Khaliif Allahu raxmade uu weynaa culimada ugu weyn buu kamid ahaa magaalada odayaasha xaafadan marxuum Maxamed Futool, marxuum Ibrahim Abbas, marxuum Abdi Sirat Rabe والله تنقرأ رجي أغلقا إيو حق الدنبيين أنا يكن أدعي نواه أنا 1984 جيس عندنا نلا لو معني درس عنها هالمسو برا ونقرع جر لكن ما كان صوته ما مساجد كان كسو عرر جر كنت كنا هذا سيحن جر ومساجد قديم والله قانا مقالة جالس مركا عبد القادرنا ضد بدن مقرنا يعني أبي وانقرك أصلا شخص وقرن وحنا وتجي مقالة ودقيني هاي مراكنك أصلا يو رئيس مبرو يدلبو وحالنا هاي ضدك وحال الربا إني حق مارة الصدقة مسجد الدروة صدقة جارية وين لوي صدقة جارية الشيء ومسجدك يا مدارس يا عيالش القضوة أو مسلمين تأي بيها كعبان مركا وتصارى تستي هذه وليبو مال فوق جرتو هذه الرجع كلا أو رسمبول رجع ويستعجل اسمه مسجدك وحا أغزاد وقرح بدي يعني جلسة أنت مرة وسبح حافظا يحافظك كلا أيو أنفع دونا مركب على أنا عرورتين هنا إلى النواه كاونتي كوميشن ما شو نفديها كاونتي كوميشنا
علماء waxaan ka bari lahaa memberka waa inaa ka hadashiin nabadda ummadda inay nabad noqoto waa inay khudbada jimcaha laga hadlo waay mukhadaraadkan socdo waa in laga hadlo inaka culimada maalintii 5 jeer ayuu imaamka meeshan waana la maqlay xaafadda 5 jeer fursad uu leeyahay raggan siyaasiga waa inay barsaagajiyaan waa inay lacag bixiyaan waa inay dad raadiyaan culimada laakiin ayaga waxay leeyihiin fursad jadiid oo maaragtay waagi bariyay 5 goor bay muslimiinta la hadlay iyo bulshada la hadli karaan waa in laga hadlo mukhadaraad bana county commissioner we must implement the directive of the president on matters drug and substance abuse na hapa Garissa vijana wetu wameharibika hii visu vijana wanabeba hii wananyang'anya mama the root cause is drug and substance abuse akikosa hiyo dawa ya hiyo muhadarati akikosa ndio ataanza kuibia mama ataibia jirani atatafuta kisu so we must the religious leaders government political leaders lazima tusimamishe we must implement na hii shida haiko Garissa pekee iko Kenya nzima marka waxa weeye maanta waa jumca waxaan kaloo ku dari masjid markii la dhiso maamulkiisa muhiim dadka badi masjid way dhisaan hatta qof oo muxsin ba masjid ku dhisi kara xaafadda waa in la wareega biyaha masjidka biis musquliisa waa in laga shaqeeyo korontadiisa waa in laga shaqeeyo imaamka iyo muadinka waa in ayakana gaar xaasay leeyihiin waa dad shaqo ku jiro waa in gaar loo ah gogashan quraxda badan waa in la sifeeyo waarta Nairobi masajidii waxa jirta intaasoo wiil ay ka shaqeeyeen wiilashan waxaan dhilaha iyo hooyooyinka qor saaran hooyooyinka waxaan dhilaha masjidka maalinta jamcaha salaadii intii la bilaawaan imaatiin oo haqdiin uunsiga ku shidin guriyiina waa inaan masjid ku shidin oo masjidka oo carfi jamcada la imaado gurigiinaba oo uunsiga waa ku shidine masjidka guriga Ilaahay maxaa uunsiga u diidaysay soo gabdhaha qor saaran ay maqlaan dhalinyarada waa inay mid kamid uu soo gala bahashi wuu fagayd nin shaqaalana u qoro oo wiigi 3 jeer meesha xooga carraa jirta jidkana insha Allah jidka waan ka shaqeynaynaa la miisaan jidkan u marin lahayn waa 1 kilometer ilaa midka kale lagu darakay insha Allah waa 1 kilometer sidoo sheekh uu sheegana waa run markii laamiga la maray xoogaaba oo dadkeena waxa la rabaa tukanaya kale muslimaan inaan nadaafada ilaalino oo kaba aan meel fog soo siibno masjidka magan kabadka soo gareynana aan lugaha maartay meel baa loo hagaajin lagu tirsan marka hada bishii waliba ramadaanka ayaa soo gashay وانا فرح بريان مساجدها هلو دي بيقولوا شيء رمات الشباب كه